السلام عليكم soo dhawaada asxaabta meel kasta aad dunida ka joogtaan waa cashirkii lixaad ee ka hadli doono barnaamijka Premiere Pro casharadaas oo si free ah uga baxa channelka waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay sida aad ugu soo dari lahayd videogaaga transitions haddaynu guda galno cashirkeena maanta waxaynu insha Allah sharaxaad ka bixin doonaa sida aad ugu soo dari lahayd videogaaga transitions waxa lagu magacaabaa waxa u dhaxeeya laba clip kaasoo si qurux badan isu dhex gelinaya marka ugu horeysa waxaan sameeynaa insha Allah waxaan dhiganaynaa clipskan tusaalaha ku bixin doono ayaynu dhiganaynaa halka labada clip ayaynu insha Allah tusaale ku bixin doonaa markaad soo dhigato timeline-ka waxaad u baahan tahay labada clip meesha iska galaan inaad transition dhigto haddaynu eegno labada clip meesha iska galaan clip baa dhamaanaya mid kale ayaa markaa soo boodaya laakiin waxa la rabaa si qurux badan in la isu dhex geliyo si muuqaalkeedu qurux u soo baxo sida ugu fudud aad ugu soo dari karto transition clipskaaga waxa weeye inaad tagto meesha u dhaxaysa labada clip kadibna aad right click dhahdo kadibna aad dhahdo apply default transition haddaynu soo dhaweyno waxaad arkaysaa wax yar oo ku soo biiray labada clip dhexdooda markaan xagga geyno waxaad arkaysaa clipska oo si qurux badan isu dhex gelaya clipska oo si qurux badan isu dhex gelayaan xitaa codka wuxuu u sameynayaa transition ayuu sameeyaa laakiin kan codka inagu hadda uma baahnayn kan muuqaalka bas ayuu eegi doonaa aragtaa muuqaalkiisa qurux badan ayaa la isu dhex geliyay kii hore oo aan dhammaan wali kii kale soo gelaya marka kan default ahaanka ugu jira meesha ayaa waxa lagu magacaabaa cross dissolve ayaa lagu magacaabaa waa mid is dhex gelinaya kuwa kale marka si uu soo daraysa tusaalahan ka defaultiga ah ayaadan u baahnayn waxaad sameynaysaa dul tagaysaa kadibna delete ayaa leedahay ama intaad dul tagto ayaa leedahay right click kadibna clear ayaa leedahay waxaad rabtaa inaad kuwa kale ku soo darto xaqiiqad ka soo daraysaa si aad kuwa kale ugu soo darto waxaad tagi doontaa panelka loo yaqaan effects waxaad tagi doontaa video transitions aad bay u fara badan yihiin kan aad u baahan tahay aad kala soo baxaysaa tusaalahan kii aynu hadda isticmaalinay oo ahaa cross dissolve halkan ayuu ku jiraa dissolve markaad ku dhufato cross dissolve waa kan waad jiidaysaa kadibna waxaad dhex dhigaysaa labada clip dhexdooda ayaad dhex dhigaysaa markaan ku sii daayo waad aragtaan san ayuu noqonayaa haddaynu mid kale eegno kan ka sarreeya oo kale aad soo qaado waad aragtaa isaga wax yar buu ka duwan yahay isaga color ayuu ku daray caddaana ayuu ku daray marka waxaad kala sameyn kartaa kuwa kale ayaad dooran kartaa tusaalahan slate-ka ayaan rabnaa inaynu soo qaadno oo dhex dhigno aragtaan qaab qurux badan ayuu ku yidhi waxaad sameyn kartaa isaga laftarkiisa ayaad edit ku sameyn kartaa si aad wax uga bedesho isaga laftarkiisa ku dhufo kadibna effect control ayaad tegaysaa waad aragtaan wuxuuna siinayaa optiono badan aynu wax uga bedeli karno dhinaca kan waxaan ku aragnaa hadda gees ayuu ka soo gelaya xaggan ayuu ka soo gelaya waad ka bedeli kartaa meeshuu ka soo gelaya waad aragtaan kor ayuu ka soo gelaya aynu meel kale ino hoos aynu geyn karnaa waad aragtaa sidoo kale waxaynu geyn karnaa dhinaca midigta ah ayuu ka soo geli karaa marka qaabo badan ayaad ka dhigi kartaa tusaale ahaan effect stack waxaa kaaga dhacay hal dhinac ayuu kaaga dhacay marka waxaad rabtaa inaad dhinaca kale ku dhufato isaga ayaa dul tagaysaa kadibna effect control ayaa tagaysaa kadibna waxaad dooranaysaa alignment meesha ay ku qoran tahay waxaad leedahay centerka ka dhig ayaa leedahay marka centerka ayaa laga dhigayaa kadibna si qurux badan ayuu soo baxayaan noocyo kale haddaynu sii eegno waxaa ka mid ah zoomti oo kale cross zoom markaan ku dhufano waad aragtaan zoom in zoom out ayuu sameynayaan qurux badan ayuu isu dhex gelinayaa mid kale haddaynu eegno tusaalahan kan oo kale haddaynu geyno soo qaad halka dhig aragtaan si isu dhex gelaya marka waxaa jira kuwo kale oo aad ku soo darsan karto kuwaan defaultiga aan ahayn kuwo kale aad la soo degayso si fiican oo la soo degayso insha Allah sida loola soo degayo sida lagu soo daray barnaamijka Premiere Pro insha Allah cashar gaar ah ayuu noo noqon doonaa waxaan rajeynayaa inaad aad u fahanteen maanta cashirkeena inta ayuu ku egyahay waxaynu balanaa muuqaalka xiga iyo maalin kale